munaasabad ay soo qaban qaabiyeen ardayda dugsiga sare ee Samatar Baxnaan Secondary School ee magaalada Buuhoodle ayaa waxa ay soo dhaweyn u sameeyeen gudoomiyaha cusub ee Jaamacadda Bariga Afrika Cabdilaahi Cabdisamad Cali Xasan. dhinaca kalena waxa ay sagootin u sameeyeen gudoomiyihii hore ee Jaamacadda Bariga Afrika Dr. Cabdishaafi Axmed Cali. waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha boorka Jaamacadda Bariga Afrika Sheekh Cabdiwaaxid iyo sidoo kale gudoomiyaha Jaamacadda Nuwaale gobolka Sool Professor Cabdirasaaq Lafoole. ugu horeyn munaasabadaasi waxaa ka hadlay maamulka dugsiga sare ee Samatar Baxnaan Secondary School ee Buuhoodle Kayse Maxamed Xaaji Cali. geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha boorka Jaamacadda Bariga Afrika iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha Jaamacadda Nuwaale gobolka Sool Professor Cabdirasaaq Lafoole. بعد السلام حفلتنا عساك الدكتور سنة سماتر بحنان وقبتي مهمة كود حوالي سقونتين تقدومي هوري جامعة است أفريقيا فرع يدبوه يكحلين كيسة سور دوينتا يديقلين تقدومي عصب يكحلين كيسة جامعة است أفريقيا فرع يدبوه وهنبليينتا madaxdii iyo gudiyadii kala duwanaa isku hawlay isla markaana ku guuleystay ka midhadheliyay midaynta labada jaamacadood Nugaal University farceeda Buuhoodle iyo East Africa University farceeda Buuhoodle iyagana inaan ugu hambaliyeyno shaqada ballaaran ee ay qabteen hadii ku rooyay muddada dheer qaadan lahayd وقيب كملة waxaan kala doonaynaa المعلمين تي ما ممكن تكلا أرضيدا قبل يويل البا بان يدين سلامة يا بان غفر أحسن هاي ما أنت إنا يدين ما نو سو الشيء أنا كنا واحد نقولني است رنتي هديلو دتك وحفرنا يدني يردي ما لها قاركود وقياس كرتان صور كلاجا هايستو سوماليا مقالوين كون السداي وقت كلفوجيهن عاصمتها صور كلاجا سكلاس أنا بو اسمالهين بوهودله هرمركا أي كتلاب ستيبا جري اسمالهين وإيمان جري لكن كمر راجي جنو وحير بنجوج جرا كتير جري هذا جامعة ذي بان مدجوجي ويك مرهورة فوقين هذا ويك بنكسيدو وهاي وحنا وجادي جامعة ذي مستواها معاهدي حبنا اللي قال ميس كيسو عصيري أنا عصتي وعن سكوت يا عبد الواحد إنه واحد أنا شيء حاش شيء وحكوي أنا واحد سكوت أنا واحد شيء أنا واحد سكوت يا هدي الله إنه بروتشكتر هدي الله يهدو سكوت أنا أقول هدي الله أنا كره هذه شخصية ديدا وحد ملئي لماها أما أصحاب أن لا هي أن لك عشرة شو عبد الواحد وحياته فتكوب sidoo kale maamulka jaamacadda hore wareejiye Cabdishaafi lawa sidaasaan idin la hambalyeynaya idinku duceynaya wala duceynaya waxaan idin la soo dhaweynayaa walaalkeen Cabdilaahi Cabdisamad oo isagu xitaa jaamacadiisii markii hore degree halkan ku qaatay master tawan hubaayo haduu halkeen halkan ku qaadan lahaa waayo waa dadka tirada wax garanayo ka mid yahay insha Allah idina waa u duceynayna waa la shaqeynayna idina waa la shaqeynaya idina jaamacadda la shaqeynaya xalfadana waxay daarnayd inaan soo dhaweyno maamulaha sheegay gudoomiyaha cusub ee jaamacadda iyaan mahad celino gudoomiyaha hore jaamacadda farca Buuhoodle East Africa Dr. Cabdishaafi waxaan filayaa Cabdishaafi taariikhdu way qortayo taariikhdu qofku waxay qortaa qofku markuu hawshii baneeyo ay taariikhdu qortaa taariikhdu qofka kama horeyso ka dambaysa Cabdishaafi waxa lagu saxaysan doonaa inuu yahay geesiga waxa lagu yaqaan geesina wuxuu isku day iyo samir أولاً وحنا لا هاي عبد الشافي ما سقطيه أنا عبد الشافي تخوفك مركز سقطيه وقفته وحوي دوفيا عبد الشافي وذلك كمان كمان سقطيه مر لبعد سودو بان كلنا عبد الله عبد السلام أول متى أيوه ولا النماذا يا صداقة يا صاحب النماذا ما ودحها يا سماتر بحنان ورنتي وحيابها نسجع عيد كلامي كلها تفترض ما يوحكم ذا
dee waa iskuulkii koowaad ee magaaladu ay iska leedahay weeyaan oo dad fara badan oo dadka maanta indhaha u ah sida ay markii dambeba jaamacaddu u soo saartay aalaaba inta badan waxa weeye waa iskuulka ay soo mareen waa magac iyo sharaf ayay tahay halkaas ayayna nooga socon doontaa walaalnimada iyo waxisdhaafsigu librariga iyo maktabadda qabanqaabadeeda lagu jiro waa ka qayb qaadanaynaa weliba qaybta ugu fiican oo ah ardada in la jeclaysiiyo wax akhriska waxaan diyaarinaynay barnaamijka la dagaalanka ummiyada iyo inuusan qofku wax qori oo buuhoodle 6 secondary iyo 6 maxad iyo 11 iskuul oo primary buuhoodle gudihiisa ka furan 58 iskuul oo primary markii la isku keego marka waxa weeye maanta waxay u baahan yihiin sida la sheegayo tayo madaxda jaamacadaha waxaan ka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad macalinka jaamacaddu inuu yahay quality-giisa inuu yahay digrigiisa wato aqoontiisa wato ka caafimaadka halkan waxa maan wax kala ma aha waa dareen muujin wey marka waxaad muujinaysaan dareenkiina qiimayntiina ayaad muujinaysaan aad qiimaynaysaan waxbarashada sare aad qiimaynaysaan marka aad iyo aad baan dareenkiina soo dhaweynaynaa oo qaadanaynaa ilaahay subxaana watacaala ay leeyahay koobka waad qaadeeno waxaad tihiin iskuulkii u horreeyey ee dareemay ama ha hooseeya ama ha sarreeya ama xad ha ahaadee ahmiyadda ay leedahay jaamacaddu iyo booska markaska jaamacadeed xaggalan xariifiin baa tihiin ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardayda soo qaban qaabiyey munaasabadaasi oo ugu horeeya gudoomiyaha ardayda oosna halkaasi ka hadlay afka ardayda dhigata dugsiga sare Samatar Baxnaan waxaan xafladan u qabanay ardaydu u agaasintay soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ama madaxweynaha cusub ee jaamacadda Bariga Afrika Farceeda Buuhoodle iyo sagootinta madaxweynihii hore Dr. Cabdishaafi Axmed Cali run ahaantii waxaan rabaa 3 qodob oo yaryar inaan ka hadlo midi waa sagootintii Dr. Cabdishaafi Axmed Cali haddaan ku horeeyo doctorku ugu dambeyntiina munaasabadan ayaa waxaa kusoo dhawaatay jawigii loogu talagalay xuseen xasan cadde telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Buuhoodle xarunta